sida ay faafisay filla Soomaaliya madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maamulada iyo gobolka Banaadir isugu yeeray shir furmaya 22 bishan Maarso kaasoo lagu dhameystiraya dadaaladii iyo wadaxaajoodidii arrimaha doorashooyinka. Shirkan oo loo maalmood soconaya waxaa looga gol leeyahay in lagu soo gabagabeeyo talooyinkii guddiga farsamada doorashada ee ka soo baxay shirkii Baydhabo 15 ilaa 16 Febraayo ee sanadkan, kaasoo xal looga gaaray tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka ee 17 Sebteembar 2020. Dhawaqa filla Soomaaliya ayaa ku soo hagaagay saacado kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay ka digtay carqaladeynta qabsoomidda wadaxaajoodida xalka loogu raadinayay ee isfaham waaga arrimaha doorashooyinka. Waa markii afraad uu madaxweyne Farmaajo uu shir ku baaqo tan iyo markii uu madaxweynakiisii dhammaaday 8 Febraayo. Puntland, Jubbaland, afhayeenka aqalka sare iyo musharaxiinta ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu hor istaag ku sameynayo wadahadalada isla markaasna maamulada taabacsan uu ku riixayo in aysan aqoonsan shirka ay qabanqaabisay beesha caalamka. Qoraalka filla Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo laga soo xigtay ayaa mar kale waxaa lagu soo hadal qaadin musharaxiinta oo doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalada. Tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyagoo u yimid wadahadalada xalka loogu raadinayo khilaafka doorashada. Shirkan uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqday isku day kale oo lagu carqaladeynayo shirka lagu wado inuu dhaco maalinta Isniinta ee toddobaadkan, kaasoo qorshihiisu yahay inuu ka qabsoomo teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho oo ay garwadeenka ka tahay beesha caalamka. Faaiise Cabdi Warsame, warbaahinta Nation.